بسم الله الرحمن الرحيم waxaa saaka xafiiskan lagu soo booqday khabiir xuquuq insaanka magaciisa la yiraahdo Tom Bahama runtii waxaan ka wada hadalnay xuquuq insaanka qaybta biyaha iyo nadaafadda ayaan ka wada hadalnay annagana sharciga wasaaradda sharciga biyahana waxaa ku jirta xuquuq insaanka qaybta biyaha waad ogtihiin biyaha waxa waaye nolosha bini'aadamka waaye biyaha waxay ku xiran yihiin amnigay ku xiran yihiin caafimaadkay ku xiran yihiin wax kasta biyaha ayay ku xiran yihiin dhaqaalahay ku xiran yihiin marka ayagoo ka hadlayo oo waxaan ka wada hadalnay sidii ma aragtay haweenku ay u heli lahaayeen maadaama ay yihiin dadka isticmaalayaasha ugu badan biyaha haweenka ay yihiin oo guryaha ayagaa joogo meel kastana ayagaa joogo in biyaha loo dhoweeyo haweenka si ay ma aragtay aan biyaha laga fogeynin wasaaradtaana qorsheeda wuu yahay waxaan kaloo runtii aan rabnaa wasaaradda ay qorsheeda uu yahay in maamulka biyaha hataa loo dhiibo gabdhaha si ma aragtay ay u fududaato helitaankoodii iyo sidii ay biyaha ay u heli lahaayeen ay u fududaato haddii biyaha waagi hore waad ogtihiin qabaa'ilka isku dagaali jiray haddii biyaha maamulkooda ceelasha la qodaayo haddii aanan gabdhaha loo dhiibin oo aanan maamulin hataa meeshaasi weli khilaafki ayaa soconaya marka wasaaradda waxaa u qorshaysan in maamulka biyaha naftirkooda gabdhaha ay maamulaan si ayaga naftirkooda dhanka xuquuqul insaanka ay ma aragtay maadaama dadka ka shaqeeya biyaha ayaga ay yihiin waad ogtihiin gabdhaha yarka oo 10 jirka ah iyo wixii ka yar ilaa 13 jirka ayagaa biyaha ama waraha ka soo qaada ama webiyada ka soo qaada ama ceelasha ka soo qaada ayagaa gaadiidkii ah ma si taa naftirkooda loo yareeyo waxa waaye in biyaha loo dhoweeyo tuulada si ay ma aragtay gabadha ay u hesho waxbarasho u hesho si ma aragtay gabadha ma aragtay oo biyaha ka shaqeyso ama guriga u keento si ceelkii aan loogu soo dhoweeyo ama biyihii hataa webiyada agaarkooda naftirkooda si tuulooyinka gubigana ku dhowna loo geeyo ma aragtay biyo nadiif ah ay u helaan marka intaas ayaan ka wada hadalnay ayagana dhankaas ayagoo xagga xuquuq insaanka ka fiirinayo waana isku meel un baan u soconay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ma aragtay in maanta laga hadlo xuquuqda biyaha oo ma aragtay ama xuquuq insaanka biyaha oo dhibka inta badan uu ku dhacayo haweenka marka intaas ayaan ka wada hadalnay aad iyo aadna waan isugu afgaranay runtii